Eritrea waxay ka mid ahay dalalkii uu qaybta u helay gumaystihii Talyaaniga waxa uu gacanta ku dhigay sanadkii 1808 waxa uu dalkan badda cas loo yaqaan Talyaanigu maamulayay ilaa laga guuleystay isaga iyo xulufadiisii dagaalkii labaad ee adduunka sanadkii 1941 wixii inta ka dambeeyay Eritrea waxay noqotay maxmiyad Ingiriisku ku amartaagleeyay waxay ahayd muddo 10 sano ku siman ilaa 1951 isla sanadkaas golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa qabtay shir ku saabsan ayaha Eritrea waxayna badanka ergadu u codeeyeen in Eritrea iyo Ethiopia loo yagleeyo dawlad federaal ah oo ka kooban Eritrea iyo Ethiopia 1952 ayay Ethiopia asmara ugu yeertay inay ka mid tahay dhulweynaha boqorkii Xabashida halkaas ayuuna ka bilaabmay xiriirka qotada dheer ee u dhaxeeya Soomaalida iyo Eritreanka xiriirka Eritrea iyo Soomaaliya waxa uu soo bilowday sanadkii 1961 waxayna labada ummadood sameysteen wada shaqeyn joogto ah iyadoo ay Soomaaliya u fidisay Eritrea taageero lixaad oo ku wajahan halgankii dheeraa ee xorriyad u geylanka ahaa isla sanadkaas 1961 madax ka socota jabhadda xoreynta Eritrea ayaa dawladda Soomaaliya oo markaa hal sano jirsatay weydiistay taageero ku aadan halgankooda hogaamiyaashii Soomaalida ee sanadahaasi ayaa khibrad diblomaasiyadeed iyo kuwa dhaqaalaba ku taageeray Eritrea iyagoo u ogolaaday inay isticmaalaan baasaboortka Soomaaliya si ay u fushadaan danahooda heshiis dhexmaray Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka dhacay Khartoum sanadkii 1964 kadib dagaalkii xadka ee labada dal dhexmaray waxa uu soo dedejiyay inay hoos u dhacdo taageeradii Soomaaliya ay siin jirtay Eritrea bilowgii hore ee sanadihii 1970 ayay mar kale kor u kacday taageerada dawladda Soomaaliya ee ku wajahan Eritrea isagoo madaxweynihii xilligaas ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre uu fagaarayaasha caalamiga ka difaacay xaq ahaanshiyaha qadiyadaha Eritrea taageero hub iyo tababar ahna uu u bilaabay kacdoomadeyaasha isagoo koonfurta uga furay xiriir ay ku tababartaan isuna diyaariyaan jabhaddii EPLF 1991 isbedel ballaaran ayaa ka dhacay geeska waxaana taladii Soomaaliya xoog jabhada careysan uga faramaroosadeen hogaamiyihii kacaanka Muqdisho taasoo horseeday xasilooni darro isla sanadkii 1991 ayuu ku aadanaa kolkii talada dalka Ethiopia ay qabsadeen Malla Sanaawi oo horwada TPLF iyo Asiyaas Afawarqi oo hor socda jabhadihii Eritreanka ahaa bishii May 1993 ayay Asmara afti dadweyne kaga xorowday cadowgii gacanta ku hayay sanadaha badan ee Ethiopia waxayna noqotay dal madax bannaan nasiib darro Soomaaliya waxay noqotay qaran fashilmay oo dib u helin awoodiisii dawladnimo dagaaladii dhexmaray qabaa'ilka Soomaaliya tan iyo 1991 iyo colaadii Eritrea iyo Ethiopia ee xuduudka baadhama ka socday 1998 ilaa 2000 ayaa xadiday ama meesha ka saartay kaanshiyaha ay labada dal u heli lahaayeen inay yeeshaan xiriir adag oo laba geesood ah si kastaba ka hor iyo kadib markii ay TPLF oo maamusha talada Ethiopia u dhila dhaansatay duulaankii Soomaaliya dabayaaqadii 2006 Eritrea waxay mar walba si aad uga soo horjeeday faragelinta militariga Ethiopia ee Soomaaliya waxayna marar badan dhaleeceysay faragelinta culus ee reer galbeedka Mareykanka iyo TPLF ee hormuudka ka yihiin ay ku wajahan arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya waxayna hoysiiyeen kooxihii isku magacaabay isbahaysigii dib u xoreynta Soomaaliya September 2018 Eritrea iyo Soomaaliya oo markaa hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markii dambe ay ku biirtay Ethiopia ayaa qalinka ku duugay heshiis iskaashi oo dhinacyo badan leh halka horaantii 2023 iyo bartamihii bishii Luulyo ee isla sanadkaasi Eritrea iyo Soomaaliya ay kala saxiixdeen heshiis lagu xoojinayo iskaashiga labada dal reer galbeedka iyo dawladda Ethiopia ayaa ka walacsan iskaashiga amniga ee sii kordhaya ee Soomaaliya iyo Eritrea iyadoo dalalka qaar ay faafiyeen been abuurro aan sal iyo raad toona lahayn oo ku saabsan iskaashiga ka dhaxeeya labada dawladood